dekada weyn ee magaalada Berbera ayaa waxa ay tahay dekada kaliya ee ay Soomaaliland wax uga soo degaan waxna uga dhoofaan. waxaana dekada Berbera ay dhacdaa marin istiraatiiji oo ahmiyad dhaqaale iyo siyaasadeed dawladeed wadamada ku yaala Geeska Afrika. dekada Berbera waxa isticmaalo wadamo aad u badan oo ay ka mid tahay wadanka Ethiopia oo Soomaaliland ka xiga dhinaca galbeed iyo koonfureed. kuwaasoo ay badeecad aad u badan ay sanad kastaba u marto wadanka Ethiopia iyo sidoo kale wadamo kale oo Soomaaliland la jaara. dekada Berbera oo sanadadii u dambeeyay si weyn u shaqeynaysa ayaa waqtigan waxay ka mid tahay dekadaha waaweyn ee caalamiga ah ee sida weyn looga yaqaano wadamada ku yaala adduunka. dekada Berbera oo waqtiyo kala duwan iyo waayo kala duwan soo martay sidoo kalena ay soo maamulo kala duwan ayaa midba uu wax ka soo qabtay. maamulka dekada Berbera waqtigan gacanta ku haya ayaa horumar aad u ballaaran oo dhinac kasta la gaarsiiyay muddadii ay xilkaasi hayeen. tababarka shaqaaluhu waa hawl socodsiinta dekada weyn ee Berbera oo ahmiyad weyn qaranka u leh. maadaama ay dekada Berbera ay sidaasi tahay waa lagama maarmaan in la helo shaqaale u darban hawlaha shaqo ee adag ee ay waajahayaan rarista iyo rogista iyo sidoo kale qaybta ugu muhiimsan ee soo xidhista iyo furista maraakiibta oo qayb weyn ka qaadata badeecadaha kala duwan ee ku soo xidha dekada Berbera. shaqaale aad u tiro badan ayaa sanadadii u dambeeyay loo carbinayay habka kaxaynta taagaga iyo maraakiibta ee dekada Berbera iyo sidoo kale ka shaqayntooda. waxa sidoo kale lagama maarmaanayada in mar walba la helo ciidii farsamadaasi khibradda u lahayd. haddaba dekada weyn ee Berbera ayaa sanadadii u dambeeyay ka shaqeynaysa sidii loo tababari lahaa dhalinyarada kala duwan ee ka shaqeysa waaxda faraca badda ee soo xidha maraakiibta ee dekada Berbera. sidoo kale waxaa dekada lagu soo kordhiyay qalab lagula soconayo guud ahaanba dekadaha Soomaaliland xiriirka ay la leedahay ee ku yaala gacanka Carabta. barnaamijkeena kooban ayaa intii aynu daawanayno waxaanu ku arki doonaa tababarkan iyo sida ay uga faa'iideen dhalinyaradaasi. waxaa sidoo kale aad ku daawan doontaan qaar ka mid ah da'yarta la tababaray oo iyagu soo xidhaya qaar ka mid ah maraakiibta ugu waaweyn ee ku soo xidha dekada Berbera. waa maalintii ugu dambeysay ee tababarka taaga cigaal lagu qabtay badda sidoo maraakiibta u soo xiro at the same time dadkii traininada galay ama dhalinyarada traininka galayna ay maanta toos shaqadooda wateen oo iyagu intay maraakiibta taaga kaxeeyeen ay markabka lagu soo xiray. taasuna waa guul weyn oo maamulka iyo dawladda ugu horeeya madaxweynaha dalka maarayaha dekada iyo dhammaan shaqaalaha. mushkiladuna ma aha maxaan ku yiraahdaayeen in waxa la wado ama taag waxa doonta laakiin korinta dadka ama maamulida dadka oo haday noqoto labis iyo haday noqoto ilaalin safety intaba maxaan ku yiraahdaayeen maarayuhu ugu weyn yahay isaguna uu xoog saaray sidii dadku ay ugu ekaan lahaayeen waqtigan standardka caalamiga ay la socon lahaayeen. runtii aad iyo aad baan ugu farxay maantay shaqadaanu qabanay. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. waxaana weeyay xil wareejintii ayaa ku jirta taag cigaal oo markii hore mas'uuliyaddeeda aanu siinay si ay u tababaraan shirkadda weyn ee B&O taasoo lacag fara badan iyo tacab fara badan aanu gelinay sidii dadkan loo soo saar lahaa shir cusub. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. maanta oo taariikhdu tahay 25 Noofembar waxaan kalsooni buuxda ka qabaa oo qarankana u sheegayaa raggii aanu soo saarnay inay hananayaan oo ayagu gacantoodii bariyo 26 xil wareejintu u dhici doonto haddii Ilaahay yidhaa. hadda taaga ama soo xidhaha maraakiibta oo ahmiyad weyn u leh dekada Berbera isla markaasina aanay dekaduhu la'aantii aanay shaqeynin ayaa waxa uu isu diyaarinayaa sidii uu soo xidhi lahaa markab taagan istaanka ama angarejka ay maraakiibtu ku sugaan inta uu kaalku u bannaanaanayo. mid ka mid ah dhalinyaradii lagu tababaray inay kaxeeyaan
ayaa isteerinka qabtay kana goosanaya dekadda weyn ee berbera si uu u soo caashaqo ama u soo xidho markabkan weyn ee isagu taagan angareejka goobta loo yaqaan. hadda dhinacii angareejka ayaanu u dhaqaaqnay waxaanu taagu isku dayayaa inuu xidho amaba soo caabiyo markab weyn oo aad u dheer oo loogu talagalay in dekadda markaasi lagu xidho. shaqaalahani waa qaar tababaran oo muddo dheer la barayay xirfadda soo xidhista iyo furista maraakiibta. guud ahaanna waxay u tababaran yihiin habka loo xidho maraakiibta iyo habka loo furo. qaarkood waxay diyaar u yihiin sidii ay u qaban lahaayeen xadhkaha dhumucda weyn ee uu markabku tuurayo intaanu dekadda gaadhin, halka ay kuwo kalena ay ka hagayaan oo ay siidhiga carabka ku hayaan. halkana waxaa ka riixaya taagga oo isagu u gelbinaya dhinaca dekadda si uu dhinaca ugu saaro sabadda adag ee loogu talagalay in maraakiibta lagu xidho. waxay halkaasi ku diyaara sidaa arkaysaan shaqaalaha dekadda weyn ee berbera ee tababaran oo iyagu si weyn u labisan una diyaargaraysan oo u diyaara sidii ay u qaban lahaayeen xadhkaha markabka. shaqaalaha la tababaray ayaa waxay nooga warrameen waxyaabihii ay barteen muddadii uu tababarkaasi u socday. waxaan ka mid ahay qoladan 60 taag master ee training ku dhameystay taag cigaal. run ahaantii waxyaabaha la oran karo ka faa'iideen kasoo badan la soo sheegay waxa ugu weyn aanu oran karo ka faa'iideen waa experience. waayo dad experience leh oo badan ka soo shaqeeyay waxna baray Captain Rajab iyo Chief Engineer Katambo iyo nin naga tago isna nooha AB oo Cali la oran jiray isna aad ugu mahadnaqaya. waxa kale oo aad ugu mahadnaqaya mudane Maariya Saciid oo run ahaantii naga soo qaaday meel hoose oo joognay يعني وانك ترينيكان يو هولهان اوردان رانتي نو هرغلي horta marka hore maraakiibtu waa inbound waa mid soo galaya iyo outbound mid baxaya iyo shifting iyo mid shifting lagu sameeyo inta waxa soo raaca waa terminalka oo isla laftirkiisu inbound iyo outbound run ahaantii intaba waan naqaanaa maanta marka midna ma naqaano waan soo xidhi karnaa maraakiibta shifting waan sameyn karnaa waan furi karnaa dhamaantood sidoo kale inta waxaan dheer oo nala baray documentationka iyo drills wax la yiraahdo oo exercise hadii noqoto fire-ka hadii noqoto man of board qof badda ku dhacay hadii noqoto bandhashib bahalko yaani caariyay oo yaani laga digiyo kale sidoo kale waxaan ka xusayaa dhammaan macallimiinta waxna baray ugu horeeyay Captain Rajab ruuxantii wanika kaliya taa in dhiiri gelin jiray ruuxantii in badan la soo dadaalay muddo dheer oo sanada aad u maasantiin waxaan oran lahaa haddaan laba reer ka aado trainingka wuxuu training aad iyo aad u wareegsan oo qiimo sareeya oo naga soo qaaday dhulka oo nageeyay standard meel sare maanta aanu la midnahay taagmastarada adduunka ka shaqeeya aanu la midnahay haddii noqoto dhinaca safety-ga iyo haddii noqoto dhinaca maneuvering-ka iyo haddii noqoto dhinaca kastoo shaqadaaba taa aad baan ugu mahadnaqaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan Maariya Saciid aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxyaani wuxuu naga soo qaaday dhulka wuxuu nageeyay meel sare waxaan halkan kale aan doonayaa inaan halkan ka xuso maarayaha dekedaha Soomaaliland Maariya Saciid oo runtii dadaal weyn u galay sidoo dekedan uga dhigi lahaa deked international ah run ahaantii waxaan kale oo xusuustaa dekadu barigii hore waxay shaqayn jirtay 12 hours laakiin imika waxay shaqaynaysaa 24 hours
dadaalkana waxa lahaa maareeyaha dekedaha Soomaaliland maareeya Saciid Xasan Cabdilaahi waxa kale oo aan halkan doonayaa inaan aad uga mahadnaqo macallimiintii trainingka soo siisay Captain Rajab iyo Chief Engineer Katemba runtii waxaan aad ugu faraxsanahay oo aad uga mahadnaqayaa maanta inaanu nahay dad reliable oo la isku haleyn karo laguna aamini karo shaqada ay hayaan way shaqadan qaranka u haynaa waa shaqo sensitive ma aha shaqo u baahan waa shaqo u baahan leexleex waa shaqo straight kana waxaan baray chief macallimiinteeda ay kamid ahaayeen Captain Rajab iyo Chief Engineer Katemba training kan kasto loo gabagaboomay oo doonno inaan markabka la wareegno halka shaqada ka sii anbaqaadno waxa mar labaadkan iska ma hadlay ragii training kan siinayay oo ah Chief Engineer Katemba iyo Captain Rajab ma sha Allah si fiican bay noo baraysi daacada wax noo bareen kuwaas oo waxyaabo badan horteena baray hortay halkan inaan ku soo koobi karin sidii hortay markab loo badbaadin lahaa sidii tababar loo sameyn lahaa sidii hadii markabka isaga laftirkiisa ay cilad uga timaado oga badbaadin lahaydeen marka sidii markab kale xitaa aad u caawin lahaydeen haday uu shil ku yimaado wax kastaba ku yimaado marka waxaan hortay halkan aan aad iyo runtii uga sii salaamaya maariyahayga kaasoo ah training-ka sida fiican noo siiyay waxaanu baranay markaasi training baanu baranay muddo sanado noo socday training kaasoo aan waxyaalaad aad u fara badan oo naga dhimaan ku baranay kaasoo hadii aanu isyar dul taago safety-ga oo aad u kala duwan aanu ku baranay Allahumma salli ala Muhammad waxa kale aanu ku baranay markaasi habka maaragtay wada shaqaynta iyo cooperation-ka loo sameeyo waxaan aad ugu mahad celinayaa macallimiintii waxna soo baray Captain Rajab iyo Chief Engineer Katembo oo si hagar leh noo baray heerkan inay soo gaarsiiyay waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin aqoonta aadna barteen waxaan xasuustaa oo aan halkan ka xusayaa waqti aanu ahayn laba taag mister oo qudha حتى أنا لهين administration وناكسن uniform أنا لهين ما أنتنا وادركتانو ده عدعيات صعب كلو ما قارن كرو أنتي وماري سعيدين وحا آدي وقشقي سيدي ومارين لها وقشقين لها سهر عالمية أو شقالونا وقشقين لها سهر عالمية وأنا كد ذلك ما أنت وحاركتان taag mastarradan daada yaryar leh ee soo kordhiyay waxaana mahaddeeda iskala maareeyay Saciid aad iyo aad baan ugu dadaalay haddii aan ka sheekeeyo waxyaabihii noo qasoomay inta ay la joogeen labada trainer Captain Rajab iyo Katembo labadiiba wax noo qasoomay oo aan ku horeey taag mastar ahaanteeda anaga waxaan adigu awoodna saareeyo adigu haday noqoto dhinac maruufuniga haday noqoto dhinac shaqooyinka kale Captain Rajab Ligancha Captain weeyadu professional man wuxuu baray nimo barmkirada habka loo kaxeeyo ama habka markab loo xiro ama loo furo ama loo shifta gareeyo nimo barin laakiin wuxuu baray sida xitaa lafteeda aan badbaadin lahayn ka hor intaan badbaadin taaga ama asadka dalku leeyahay aan saaranahay intaan badbaadin wuxuu baray sida loo shaqeeyo as team work loo shaqeeyo oo tusaalahaan haddii noqoto qof imika dhaawac kale sida qofka kale bedeli lahaa uu caawin lahaa haddii noqoto tusaalahaan waxaan una baray wax ka mid ah safety-ga soolaan waa full PPE waa waxaan imka xiranahay helmetkan safety shoeskan overallkan iyo anfiskan halkan marayno waa heer standard station waxaanu ka tagnay low ayaan ka soo kacnay heer station bana marayna maanta alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa waxaana de mahaddeeda iskale cidii abaabulkan lahayd oo ugu horeeyay maareeyuhu we came here through PNDO Maritime and we came for tag delivery for Somaliland Port Authority. Through that also we come for training for tag master and tag engineer. So the training going well and we succeed to complete 1 year. My name is Engineer Katembo from Tanzania. We work for PNO Maritime Authority. Our office based in Dubai, and we came here since last year. We deliver a tugboat which was built in Turkey, Sanma Shipyard. Our purpose of coming here to train. Good morning again. 1045 to Hong 1045 drop anchor copy. Thank you. Thank you very much. Stand by on channel 16. Over and out. You have a good day.
waa goobta la yidhaahdo Port Control Signal Station. Waxaa laga hagaa maraakiibta maraysa guud ahaan badda cas iyo gacanka cadmeed. Halkan waxaa inoogu taalla shaashad weyn. Waxaa laga dheehdaa dhammaan maraakiibta maraysa kuwa ka gudbaya Baabilmandab. Waxa kale oo aad ka dheehan kartaa deked kasta waa tegi kartaa. Deked kasta oo mandiqada ku taalla iyo maraakiibta ku xidhan waa dul istaagi kartaa, waad eegi kartaa gacanka cadmeed iyo badda cas waxa maraya oo kale. Kan waxaa la yidhaahdaa AIS ama Automatic Identification System. Wuxuu kuu sharaxayaa markabka oo dhan xawaarihiisa, xaguu u socdo, xilliguu imanayo, meeshuu ka imanayo, meeshuu tegayo dhammaan. Kan isaguna wuxuu la shaqeeyaa raadaarka oo marka aad doonayso markabka uu kani kuu soo saaro inaad tafaasiishiisa aad eegto ayaad halkan kombiyuutarkan ka wada dheehanaysaa. goobtan waxaa jooga shaqaale u tababaran nidaamka isgaarsiineed ee dekedaha caalamiga ay ku shaqeeyaan. run ahaantii wax badan baa laga bedelay. qalabkani iminka wuu cusub yahay, dhowaan baa la rakibay oo dhowr bilood ka hor. VHF-kayagani wuxuu gaari karaa masaafo ilaa 45 nautical miles. isgaarsiinta kale iyadu waxa weeyaan 100, 200, 300 nautical mile way gaaraysaa, waad ka dheehanaysaa. maanta waxaa noo soo gabagaboobay seminaaradii kala duwanaa ee kala muddada ahaa. ka u gaabani uu ahaa 3 bilood, ka ku xigaana uu ahaa 6 bilood, ka u dambeeyana ahaa ka ugu muhiimsan oo ah 15 bilood ama sanadii 3 bilood. sidaan horeba u sheegay waxaanu keennay taag cusub. haddana waxaa noo soo socda mid labaad. qorshahayga iyo higsiga waxa weeye inaanu dadka shaqaalaha dekedda ka shaqeeya in tababarkooda la gaadhsiiyo heer caalami, heerka ugu sarreeya ee international portsku ay ku shaqeeyaan. dabeed waxaanu gaadhnay go-aan ah maadaama shaqaalaha iyagu ay badan yihiin oo aanan scholarship u wada dirayn inaanu macallimiintii iyo tababarayaashii ugu keenno halkan dekedda berbera, kuwaasoo muddo 15 bilood ah tababar mid practical iyo mid theory-ba baray, soona saaray taagmastero cusub oo dhalinyaro ah, engineers dhalinyaro ah, motormanis dhalinyaro ah, mooring dhalinyaro ah, port control dhalinyaro ah. runtii maadaama raggii hore ka soo shaqeynayay qarankan u soo shaqeeyey, ragna ay retire yihiin, ragna ay gabaabsi kusii jiraan, runtii waa in jiil cusub oo qarankan u adeega loo soo saara. marka run ahaantii waxa weeye maadaama ay ahmiyadda koowaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda Somalilandna tahay in ummadda tacab la geliyo, intaan daaraha la dhisin waa in dadka la dhisaa. dhibta badan ee Somaliland ka jirtaana waxa weeye daarihii baa ka hor dhismay dadka qalbiyadoodii iyo qulubtoodii ay ku shaqeyn lahaayeen. annaga ahmiyaddeedu iyo ambitiouskayga waxa weeye inaanu soo saarno jiil cusub oo la jaan qaada caalamka.